sida runta maantu waa maalmaha ilaahay waa run laakiin maalmaha taariikhda inuu geli doonay ka mid tahay khusuusan tacliinta haweenka ama tacliinta gabdhaha maalmahoodii muhiimka ah bay ka mid tahay maalmaha muhiimka ana haddii in la xuso waa muhiim ayadana anigu hadda xaflad iyo waxa aan dhehaynin laakiin maalmaha in la hilmaamo sida runtaa ay xun tahay weeye maanta kulli ilaahay inkaan u mahad celino kadib subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa mudane aadan oo dee mar badanna aan u mahad celinay ilaahay kadib subxaanahu wa tacaala inaan haddii mahadda celcelinana sabab baa keenaysa haddii ruuxii ixsaan kuu sameeyaaba axsanta mutaystaaye ruuxa ixsaanka kuu celcelinaya muxuu mutaystaa ruuxa maanta 100 shilin oo aad tugta ku raacda ku siiya maxaa dhihi axsant ruuxa kuu celceliyana oo intaasoo milyan weliba kuu celceliyana mawig wax la sii dhahayo marka khayrkiisaa socda mar hadduu khayrkiisa socdana waxaan ku khasbannahay inaan annagan celcelino axsant inaan ku celcelino jazaaka allahu khayr gaarigaasuu na siiyey haddana gurigiisu nagu marti qaaday gaariga kadib insha wax kalaan sugaynaa kulle geel iyo wax qalaan ma ogi inaan sugno ayadana marka taas ayaa keenaysa sidii runtaa inaan u mahad celino mahaddan aan celcelino waxaan ka yaabanahay inaan fasaaxadaydu xumaato gabdhihii baa fasaaxadii naga xoogeenba marka khayr allaha siiyo say u wacdinayeen haweenka iyay fasaaxadoodu meel fiican maraysa annagii had waaba sii guraynaaba taana waan ku faraxsannahay sidii runtaa inay hawshii ay la wareegaan tacliintu gabdhaha mar hore ay soo bilaabatay laakiin sidii runtaa 20 sano hadda inoo dambeysay kor bay u socotay ilaahay baana mahad ku leh subxaanahu wa tacaala anigoon rabin hadalka inaan sii dheereeyo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa ilaahayn u baryaynaa mudanaha madrasadii saddexaad oy gabdho leeyihiin oo gaari guddoomaan hadda gaarigan waa kii saddexaad waana kii ugu yaraa waxaa malaya ka afaraad uu weynaan doonaa labadii hore loo gaaro waaweyn bay ahaayeen kan wuu yaryahay midka afaraadna insha allah wuu jiri doonaa aaway kuwa kaloo sugayeen adigana kuwa kala gaari sugayaan raashidaad soo ma joogaan liista lagu daba qabtay hadda intuu ninkan nool yahay fursadaa jirta fursadaas marka maantu inaan gaarigaas wada guddoonno maasha allah waxaan rajaynaynaa inay madaarista wiilasha eegan madraso gabdha loo bedeli doono sifa eegana gaari ku helaan iyo xoogaa dhaqaale ah laakiin maxushmuha madaaristii wiilasha ayadana ha hilmaamin dhaqaalihii hoos buu iskaga dhacay dhib badan baa jira waxaan codsanaynaa ayadana maaragtay in loo soo celiyo gacan debcintii anigu waxaygu waa uun furfurashadaas weeye waa ku mahadsan yahay mudanaha gabdhaha sida runta tacliinta u joogsadeenna waa u mahad celinaynaa ilaahay khayr ka waafajiyo ilaahay qalbigooda iimaanka ku sugo ilaahay waddada saxda ay hayaan ha ku sii toosiyo midda labaadna haddee waa mas-uuliyaddii laga sugaya weeye inuu raggii dhallinyarada ahaa ee madaarista soo bogay ay noqdaan khadiib oo wacdi iyo qaadi gabdhihiina ay markay madraso bogaan ay ilmihii ay un iska nuujisato fursaddaas ayada fursad maqan bay ahayd laakiin alxamdulillah hadda day imaatay fursaddaa ha la sii xoojiyo muxushmuha gabadhaas ruqiya waxaan u malaynaa galaaskii koowaad may ka bilowda mise kii labaad saasay ha madrasada ku dhammaysay haddana jaamacadday gashay markay yareedbo firfircooni xoog lah ka muuqatay ruuxa nool baa ku nooleeya insha allah iyadan waxaan ilaahay khayr uga baryaynaa inuu khayrkaa waafajiyo xabsa binti siriin iyo maamulkeedana insha allah allah khayr ha siiyo
waxaan dhihi lahaa sheekh Cuthmaan baa isagana kelimo si la yiri kulli kelimad waa ducaa innahu samiicu mujiibu ducaa ni'ma al-mawla wa ni'ma an-nasiir saruntii waxa weeye sidii loogu mahadnaqay maan ugu mahadnaqaynaa waxaan idin xusuusinayaa madraso haween khusaysa markaan bilaabaynay taariikh ahaan geed yaroo geed khadhaaro oo ku hor yaala taqwa soomeedaan arag ayaan hooyooyinkii gruub anigii sheekh Ismaaciil aan ku jiray aan ugu bilownay markii dambe waxaan dhisnay mudul yar mudulkii baa qolo khuraafiyiin habeenkii intay u dhunteen bay gubeen dabeedna ilaahay khayr badan buu keenay qoladii yaa muslim sheekh mudul rasuul allah adkuro bil khayr yaa saddexdii fasal ugu horeysay meesha ka dhisay lacagtii lagu gadayna isaga lahaa waxay soo martay marxalad kasta ay soo martaba ugu dambeyntii Khadiijo ayaa bilowday xaramayn gacan weyn ay ku lahaayeen xaramayn hadii khayrkeeda badna kulkii la arko gaala isu kaashato waa la eriyay taariikh ahaan intaasan kale inta kale markaan u soo noqdo hadda halka la marayo maanta gabdhuhu waxay sheegayeen dadkooda sheegay khayr allah si waxa la yiri xarka geel ma wada xiraan xarko laakiin mid xajiya lagu xidhaa baa leeyahay meesha waxaan uga dan leeyahay rag badan oo xildhibaanaan leenahay waxaan leenahay dawlado oo maaragtay dawlad goboleedya rag xukuma waxaan le hadda wax kolkan ka soo hadlaya weeye gobolkeenan Soomaalida aw rag kale maxaa loo leeyahay marka insha Allah waxa weeye adduunyadana magac buu ku moodayaa aakhirana insha Allah ilaahay wuxuu geynay jannadii ar-rahmaan marka khayr Allah siiyo waan u ducaynaynaa wuxuu amaanta ruuxa mutawaain la amaano ahsanta iyo amaan baan siinaynaa waana u ducaynaynaa khayrna Allah siiyo way sii soconaysaa rixladan insha Allah meel badan waxaan rajaynaynaa insha Allah ilaahay hadduu umrigiisa raajiyo meel walba inuu ka dhigo gabdhuhuna waa mahadsan yihiin haweenka sida runtii waxa weeye arrin aad farxad la u weeye aad baan ugu faraxsanahay saaka maartay muuqaalkan iyo meeshan xafladan sababtoo ah waxa weeye waad ogtihiin sheekh Ismaaciil waa kan gabdhahan ku bilownay iyagoo iska waxaysan iska qaawano ilmihiin nuujinay ayaan wax u dhigi jiray maantana heerkan ay marayaan marka khayr Allah siiyo mudanaha waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay firdawsi inuu galiyo rixladana waxaan leenahay sii wad hada sallallahu alayhi nabiyina maxamed sheekh Ismaaciil الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يوم سعيد الحمد لله وما أنت عن نسكو إيماني إلهي سبحانه وتعالى يا مهدس كله كذب مدهنا مشموع آذن ومعلم أنتم معلم تسوق لي إلى ما أنت ذن علومدي ومدارستي يسكولها la taagan ilaahay subxaanahu wa tacaala allah barakeeyo meeshuu taagan yahana meel ka sii sarreyso ilaahay subxaanahu wa tacaala ha geeyo waddankayn waad ogsoon tihiin inuu ambiyaash fara badan ama qabnaa noodisteen laakiin qof keli oo maanta aan ku faanayno asag ani mandheeraan ka imaaday asal ahaan laakiin 32 sano ayaan joogaa Garissa wayaan muslim aan joogaa madrasadan oo asaas oo tacliim albanaat oo dadka bilaabay waxa ahaayeen sheekh Murtaad Rasuul hadawiye sheekh Usmaan Indweesh ka sheegay iyo sheekh Maxamed Cabdi oo labadood isqabsadeen oo madrasada taariikhdeed sheekh Maxamed Cabdi hadal aan ka soo duubay ayo ariish meesh ku dhisan oo nimin khuraafiyeen imaadeen oo gubeen ayuu sheekh Maxamed Rasuul ay u tagay isla fadhiisteen way tashadeen 20,000 baa lagu gaday dhulkaas 20,000 baa lagu gaday kaas maartay ayaa laga bilaabay fusuul bay ka bilaabeen macallimiin oo mutatawiciin oo hadda arkaysiin oo fara badan sheekh Xasan Cabdi Cali oo ra'iis majlis jaamacada mustaqbal oo ku jiro oo aad fara badan ayaa meesha mutatawiciin ayagoo yang muslim ka shaqeynahay
way luweynayeen galabtana casar 10 saac 8 saac haweenkii meesha duruus ay uga bixin jireen khayr Allah siiyo culimadaas maanta waxay soo bixiyaan waa ka madaaris hadda laga sheegay gabdhaha ay khayr Allah siiyo oo ayaga naftooda hadda masii bilaabeen wadaadaha maanta ayaga kafto ay maartay ayagoo hor socodaan taqriiban bilcaami gabdhihii gees kasta magaaladan khayr Allah idin siiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala kadib walaalkayna noo imaaday asagana meeshuu ka bilaabay insha Allah ta'ala in ilaahay u barakeeyo cadowgiis iyo wadanka meeshuu ka taagan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala meel ka sii sareyso ilaahay subhanahu wa ta'ala ana kana culimadayn ayaga Allah barakeeyo wajazakumullahu khayran wa salaamu alaykum kollaba aniga taariikhdan ay odayaashu sheegeen maba soo gaarinba dhalinyaraan ahay marka waxaa laga sheekeynayaa waa taariikh hore laakiin dhexdaan ka soo gaaray ayaga hadday noqdeen aabbayaashii annagana waa laga yaabaa adeeradii iyo walaalihii inaan noqono marka runtii hadalkoodii iyo taariikhdoodii iyo mahadcelintoodii iyo weliba gabdhaha hadalladii qiimaha badnaa ay ku hadleen wacdi iyo waano iyo ammaan way noogu filan tahay annaguna intaasaan la qabnaa ducadiina waan raacinaynaayo man sanica ilaykum macruufan fakaafi'uuhu xadiidkaas ay akhriyeen culummada ninkii abaal inii gala u abaalguda hadda kaan abaal kuu gelin ka waran hadda isagaan abaal gelinba maxaa loogu abaalgudi maxaa loogu ducayni allah hagaajiyo oo soo hanuuniyo uma dhehena laakiin ninkii abaal kuu gala maxaa loo sheegi ama loo ammaani ama loogu ducayni ama loo xushmayni haddee lama dhihi karo waa qur-aankii kariimkahaa hal jazaau lixsaani ila alixsaanu ixsaan qofkii kuu gala ixsaan buu mudan yahay qabaal qofkii kuu galana ducuu mudan yahay qofkii nicmo kuu galana in lagu shukriyuu mudan yahay waa arrin diin ah oo sharcigeena uuna baray in marka culummada dumar iyo ragba ay aadan bare u duceeyaan oy garab istaagaan waa wax uu mutay weeye waxa layska keenkeeni oo la boonboonini ma aha waxuu mutay oo bannaanka yaallo oo indhaha ay arkayaan oon qarsooneen weeye qofkii markaa ku daydaa khayrka waa la yskaga daydaaye dee waxaa weeyaan waddadii ficneed buu isaguna qaaday qofkii ka hadhaana falaa yaluumanna ilaa nafsah naftiisuun ha canaanto wuxuu adduun ku waayo iyo wuxuu aakhiro ku waayaba asaga halkaa isdhigaye waxba yuunan masayrin marka jazaakum allahu khayran gabdhaha waad naga farxiseen shaqada aada wadaan xoojiya midnimada ilaaliya isku ixtiraamka aada u xoojiya kala dambeynta maamulka aada ha loo ilaaliyo tarbiyada iyo waxbarashada ha laysku wado dowrka aada qaadateen waa dowr culuse habeen iyo maalinba waa inaad usoo jeedaan ood fikirtaan oo meelaha dardaran ee laga soo sheego isdhexyaaca iyo waxbarashadu inay ku xun tahay waxaa la rabaa inay inin noqoto hadaf aada toogataan oo aada mar walbaba xisaabta dhigataan isku xidhnaana sameeya idinka iyo culimmadiinnii iyo odayaashii iyo dadkii dacwadan khibrada iyo experience-ka u lahaa mar walbaba ku soo celiya talada oo hayni noqdaana marjax hayni noqdaano jazaakum allahu khayran mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leenahay muxushamaha ilaahay ha barakeeyo khaatimadiisana la hagaajiyo xilka asaga ana ummadda wuu ku anfacay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u xoojiyo wixii cadow ah oo shar wadana allah ka qabto gaal iyo muslimba assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu